kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka janalka Goobweyn Media qodobada aan idinku haynana waxaa kamid ah shirka madaxda Soomaalida ee ka soconaya magaalada Muqdisho qaasatan xarunta Afisyoone oo maanta la filayo inuu dib u bilaabmo saaxiibada beesha caalamka oo fariin u diray madaxda Soomaalida madaxweyne qoorqoor oo amray howlgalo ka dhana kooxda argagixisada Al-Shabaab Iiraan iyo quwadaha caalamka oo kulmay iyo 4,000 oo qof oo hal maalin gudaheed caabuqa coronavirus ugu dhintay dalka BARAZIL qodobadaas iyo qodobo kale oo aad xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan warka janalka Goobweyn Media warkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Axmed Cabdi Maxamed وهاجاك dhageystayaal isku soo laabasho wanaagsan aan ku bilownay maanta ayaa waxaa lagu wadaa in xarunta Teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho oo mar kale dib uga bilowdo shirka u dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka foolka oo bilaabmay toddobaadkii aan soo dhaafnay ayaa hakad galay 2 maalin waxaana maanta ay madaxdu ka doodi doonaan ajendaha uu ku furmi karo shirweynaha wada tashiga doorashooyinka iyo cidda ka qaybgalisa shalay ayaa qorshuhu ahaa in shirka dib u bilowdo hase yeeshee waxa uu u baaqday sababo la xiriira madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo safar ugu maqnaa magaalada Muqdisho balse shalay galinkii dambe dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya in heshiis lagu gaari karo shirka looga hadlaya arrimaha doorashooyinka si loo qabto doorasho loo dhan yahay wakiilada beesha caalamka ayaa isha waxa ay ku hayaan shirka Teendhada Afisyoone iyo madaxda ku cadaadinaya inay gaaraan heshiis salka ku haya heshiiskii 17kii Sebtembar saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada inay heshiis ka gaaraan ismarin waaga ka taagan qabsoomida doorashooyinka dalka iyadoo Soomaalidu ay u diyaar garoobayso soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan beesha caalamku waxa ay muujinaysaa rajo in mabaadi'da asaasiga ah ee milicsiga dulqaadka iscafinta iyo dib u heshiisiintu ay horseedi doonto guul shirmadaxeedka ay yeelanayaan hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada in ay heshiis ka gaaraan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka saaxiibada caalamka ayaa sidoo kale ku booriyay madaxda Soomaalida in wada hadalka ay hormuud ka tahay Soomaalida isla markaana Soomaalidu leedahay oo horseed uu noqon doono xalinta dhammaan arrimaha taagan iyo in la ogolaado hirgelinta geedi socodka doorashooyinka 17 Sebtembar qoraalka ayaa intaas ku daray in heshiiska noocan oo kala ah uu noqon doono hadiyad bisha barakeysan u gaar ah iyo waliba in ay dadka Soomaalidu ay ay ku farxaan oo xaaladan kala guurka ah ee warwarka iyo walbahaarka ku abuurtay dadweynaha Soomaaliyeed ay ka baxaan waxaan ku boorinaynaa madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah in ay fursadan u adeegsadaan in ay ku xaliyaan khilaafkooda oo ay sameeyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si loo hubiyo in doorashadu noqoto mid lagu kalsoonaan karo waqtigeedana ku dhacda si nabad ah u qabsoonta ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ay beesha caalamku soo saartay in ka badan 4,000 oo qof ayaa 24 saac la soo dhaafay cudurka Covid-19 ugu dhintay dalka BARAZIL taas oo ka dhigtay khasaarihii nafeed ee ugu badnaa ee hal maalin gudaheed laga diiwaan galiyay dalka ugu weyn Koonfurta Ameerika wasaaradda caafimaadka BARAZIL ayaa talaadadii shaacisay in 4,195 qof 24 saac la soo dhaafay cudurka Covid-19 ay ugu dhinteen guud ahaan dalkaasi wasaaraddu waxay sheegtay in tirada dhimashada ay sii kordhayso tan iyo bishii Febraayo ee sanadkan faafista cudurka koronaha ee xanuunkan ayaa sare u sii kacaysay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay khubarada caafimaadka BARAZIL ayaa arrintaasi u sababeeyay noocyada cusub ee xanuunka coronavirus oo soo badanaya iyo dadka oo aan raacaynin xanaanka kala fogaanshaha haddii ay xaaladdu sidan ay ku sii socoto khubaradu waxa ay saadaalinaysaa in BARAZIL ay noqon doonto dalka ugu dhimashada badan ee cudurka Covid-19 iyo guud ahaanba caalamka Mareykanka ayaa kaalinta koowaad ku jira waxaana xanuunka ugu dhintay in ka badan 550,000 halka BARAZIL ay tirada dhimashadu ay marayso 337,000 oo qof dowladda Iiraan iyo quwadaha caalamka ayaa kulan ka yeeshay hubka nuclearka ee dowladda dalkaasi Iiraan iyo dalalka loogu yeero quwadaha dunida ayaa talaadadii shalay yeeshay waxa ay ku qeexeen wada hadal wax ku ool ah si xal looga gaaro barnaamijka nuclearka ee dowladda Iiraan dhinacyada ayaa sheegaya inay ku heshiiyeen dhismaha gudi ka soo shaqayn doona sidii uu Mareykanku cunaqabataynta uga qaadi lahaa Iiraan ay Tehraan u joojin lahayd bacriminta maadada uraniumta
laga sameeyay ee hubka nukleerka. Wadahadalkii talaadadii ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socday dalalka Iran, Britain, China, France, Germany iyo Russia. kulankan oo gudoominayay midowga Yurub ayaa waxa aan ka soo qayb galin dawladda Mareykanka. dhexdhexaadiyaal ka socday Yurub ayaa isku dayaya in ay magaalada Vienna ee caasimadda Austria ay isugu keenaan saraakiilka kala socota Washington iyo Tehran si loo isugu dayo in dhammaan dhinacyada ku lugta leh ay dib ugu soo laabtaan heshiiskii sanadkii 2015 ee hubka nukleerka ee dawladda Iran. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Mareykanka ka saaray heshiiskii sanadkii 2018. taasi waxa ay keentay in markiiba ay Iran qaadato inay bacrimiso hubkeeda nukleerka. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen channelka Goobweyn Media. wixii akhbaaraad oo soo kordha waxa aad ku daawan doontaan wararkeena dambe haddii hebaydmo.